baratire adigay ku boge bulshadii xagarabaha pula laydiloogaade bartaankii gaarisana laga soo boqod shaqsi magac lahiyo noqohuga hasmasuul qoraadii baratire adigay ku boge شادي حاجربها ولا ليلوجا دمان وعمر لبادي مرسد حد سلامينا مرت شرفت كسو قيب شيء على مسارك وغاسكا باشا برتري كينيا خليف شيرو عثمان خليف شيرو حقيقة نبينا عليه الصلاة والسلام وحو يري ninkii waqtigii hore ee waqti jaahiliga akhyaarta ahaa ayaa waqtigu islaamka ahaana dadka ugu khiyaarsan khaliif kulli waxaan filaynaa walaalaheen bartira inay ku soo xuleen mustawaha uu leeyahay ee hogaaneed waxaan leenahay marka koowaad aniga iska bilaabaya insha Allah ta'ala waxaan ilaahay kaaga rajaynaynaa inaad noqotid hogaan wanaagsan ee dadka isku soo dumo maslaxada ka shaqeeya insha Allah ta'ala waxaan rabnaa inaan halkan ugu yeerno آذن جابو مختار أرو محمد مكينة كواسو بدقياشا باشا برتري حفلة هلكن إن شاء الله تعالى مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحن سلام يا مرت شرفت سكوتمد على مسار كان أما حفلة مدنان كستو يكون جوجان أما من قام كستو يكون جوجان رج يضمر با أنا يو وحنا هاي نن برتراء محمود أحمد سبوت قرين هيا وجاسك برتراء لود على مسار يا مانتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي ومختار محمد عبد الله مختار آرو إلهي أبشرتانا وفجيو الحمد لله والله ليال مقعي وحالير هذا آذن قابو وعلي وحان هل كان كالسلام يا وننكستم مصمك وكفر يا أنكو سلام يا صوادين تصوماليات وهلك أمرت شرفك كوه نسوء أجيبتي علماء دينك وضياشا هويوينك دليرada bahda saxaafada assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh intaa kadib aniga waxaan ahay nin bartire waxaan ka ahay beesha laagmadooba marka waxaan taageersanahay ogaaska beesha bartira countiga Garissa ay u soo qaateen yaan ma artaa ayidsanahay maxay yeelay sheekha haday dhameeyay waqtasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu wadhkuru bayhad ha kala tigina dad kala tagtaa waxaad noqonaysaan waad fishilmaysaan waad baabaysaan ogaaska waa nin sharaf badan waa nin ehel waligii ninkan sabeen laga xirin waaye nin waligiis tolka iyo islaamka baan dambi ka galin waaye marka waxaan idin sheegaynaa walaalahayna Soomaaliyeed oo macnaha salaadiinta iyo nooc kasta leh inaan nala soo dhaweysaan waxaan rajaynaynaa khilaaf kasta oo countiga Garissa Soomaaliyeed dhexda ka dhaca inuu gul weyn ka qaadan doono rajaynaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh annaguna waa idin soo dhaweynaynaa hogaanka dhaqanka ee maanta halkan aad ku doorateen insha Allah ta'ala barnaamijkii baan hore u sii guda galaynaa bidin Ilaahi kariim waxaan rabnaa inaan u yeerno
hoggaanka samawadal dhaqanka ama geedka Soomaalidu waxay leedahay dhaqamo kala duwan horta mansabkan halkan aan u joogno hadduu yahay hoggaan wax badan buu ka turjumayaa hoggaanadu way kala duwan yihiin waxay leeyihiin suldaan waxay leeyihiin ogaas waxay leeyihiin imaam waxay leeyihiin malaaq waxay leeyihiin wabar ummadda Soomaaliyeed ninba sibay ugu dhawaaqdaa laakiin muhiimadda waxa weeye waa qoom isu tagay tashtay go'aansaday inay hoggaan ay ku daba tukadaan danahoodana u istaaga doortay magacaas ay qaadanaya hoggaanka dhaqanka insha Allah ta'ala waxaan u yeerayaa ogaaska geedka samawadal Maxamed Cabdullaahi beelaha dhammaan halkan horta ka soo qayb galay mar labaad haddaan kor marno way wada joogaan gaaris dadka degan oo dhan waa ka kooban yahay Soomaali oo dhan Maxamed Suweer baa jooga Maqaawil baa jooga Awdaq baa jooga Cabdallah jooga Awlihan baa jooga Weyteen Absama jooga Bahgari baa jooga Maxamed Suweer baa jooga Dagoodiya jooga Garaa jooga dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan way idashahay cidii halkaani intaan wax tabino aan ka tagno ulajeedo uga maalan tagina insaanimadeena ayaa mataqaanaa ka turjumaysa inaan wax ilaawno marka waa inaga raali ahaanaysaan qofkii magaciisa anta sowna ama mansabkiisa ama title-kiisa aan ku xadgudubno ula kac inagama aha waan ka sii afeefanaynaa inaad ka raali ahaataan marka waxaan u yeeraynaa mid ka mid ah hoggaanka geedka dhaqanka Cabdallah ama samawadal Maxamed Cabdullaahi alhamdulillah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باشي برتري وما أنت نعن سوتي مرتي شرفته أما مناسبة شرفته بدن وصفي عن لوسو أجاسمي أنت سو أجاسمتي وأنا أغمها العلينا أنت فكر كارد اللي يرضى أما ضياشة أما هبلها فكر كون أكسنجليين الله كأجرسيو وسيدة باشا سموضل واس عبد الرشيد عبد الله واس عبد الرحمن سني واس عبد الدقنة يا إلى السعودان وجيت كمدة جيت كنا وجيت كي سموضل جيت كي سلطان حسن عمر شوريه يان مثلنا يا ماشي ما أنت كم مثله يا جيت كي سلطان حسن عمر شوريه وباشا سموضل شكرا لك محيي عبد الله باشا وباشا سموضل عبد الله مقعد بدعيب ما أصنع لا باشا وباشا سموضل جيت كسموضل وكاكو وين هاي واتسود وانا إنسان واس خليف شيلو عثمان شيخ يجا شيخ جامع نكن جاربان هاي وشيخ يجا وجار كيجا ودرس كيجا وأنك كتابها نوا أخريه مسجد البلال ابن رواح كل يالله وأكبر مقالة كنا السوق كل يالله شيخه فضلا مركز شيخ هذا محمود يبانه ننقل عبد الله جوجي لما أنت وان برتي الحمد لله مناسبة شرفت له ونسود وينينا بشه وحيسكو صور رعدي ويسوع على مسارتي ويكسو أفقابستي dadka waa qaran gaaris qaran baa degan waa magaalo madaxda Nooistan waan fiican tahay qawaa'ilka inuu astaan ama calaamad ama albaab inuu sameesto 24 saac wax dhaca bartire waan garanaynaa ilaa hadda oday muuqdo waan u garanaynaa maanta waa dadabay nagu noqon lahayd ilaa subaxan maxaa weeyay calaamad bay sameesteen albaab bay sameesteen oo intuu maanta wax dhaco shar iyo khayrba loo maro waan soo dhaweynaynaa waaska waa soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciyaarta sharafta leh waan idin salaamaynaa waan idin marxabaynaynaa waan idin kaga mahad celinaynaa soo dhaweyntiina iyo waqtigan kulal ee aad waqtigiina inoo horteen ilaahay subxaanahu wa tacaala cizi iyo sharaf ha idinka siiyo soo dhaweynteena iyo ajiibisteena waxaan rabaa inaan u yeero ogaas xuseen cusmaan nuur in halkan kelmateen uu ka yiraahdo waxaan filayaa ogaasku
dadkoo dhan buu ugaas u yahay macal aniga haajira ugaas buu ii yahay xaqiiqda ugaasku waa ninka dantaada u qumo ummadaha Soomaaliyeed buu ka dhax shaqeeyaa arrimaha Soomaaliya uu ka shaqeeyaa Soomaaliya oo dhan buu baarlamaankeeda dhax fariistaa haddaad ogtiin ugaasku waa siyaasi baarlamaanka Soomaaliya kuba soo kala xulo weeye marka laftirkeeda natiijo fiican inuu Soomaaliya nooga keenan ilaahay ka rajaynaynaa ugaas soo dhawow waa ugaaska beesha Talamuge ee Soomaaliya أولاً نفتيدي إتينا وحنود الدار ما هي عبسيد إلهي عبسيد إلهي ويكوبان تهي وحو إلهي نجرنا هي ونلقى هيلين وحو نغفر لي ونلقى واين الله نوافجيه أنت هذا تقول بو لما أهلك كسوق يبقى لي حفلة على مسارك وغاسك باشا برتري كينيا وغاس خليف شيلو عثمان آذن وانا محسنتين وانا سلامتين قود أهان صومالي هدي أهان لهيد هدي باشكم أهان لهيد انتبا وسلامتين وانا محسنتين انت هدان كقود بو طلو باشا برتري يا وحي إنوغو مرتقادو إنوغو يرلي وغاس خليف على مسارة ريان وغاسك معرفة وانهي اسكو ديغان وانهي فعلا وانين رقاس صومالي أنا مركز سهورة كسو جيدي وانين المعرفة نهي وانين أنا كوغين أنا شخصيا حمان ضدك لحدي ساكوما أوغي وانين مركز تأوتاقنا ضدك لحدي سوحي كدعا إنو حليو وسيئه اللي معه ولا اللي معه نفاق حمان كجرين وحليه مركز هرب السيدة سواها maanta waxaan leeyahay wax dheeri ah baa markaas soo kordhay oo isagoo markii hore oday ahaa iyo haddana beesha ay caleema saaratay ehelkii la dhashay kuumade sida fiican xafladda uga soo qayb galayna waxaan ka codsanayaa inay ugaaska xilka ay beesha u dhiibteen lagu garab istaago oo maxaan ku iraahday maanta laga bilaabo uu noqdo albaabkii bartire laga galahayay oo wixii maxaan ku iraahdaa dhaqan ah lagala xiriirahay bartire waxaan leeyahay dadka inta wax loo dhiibto yaa la dhibaa duqeyda waa la mashquuliyaa waxaan codsanayaa duqa xilka aad u dhiibateen inaad ku asturtaan asturnaanta waxaa weeye inaad garab istaagtaan waa bini aadan maxsuub ma aha uu khaldamahayaa in khaladkiisana la qariyo oo la asturo danta reerka iyo danta dadka deegaanka ah ee kuumado ka bilaaban hayana lagu garab istaago oo caawisaan intaasna bartiraan ka codsanaya waana mahadsantihiin aniga xaggaasaan jiraa beelweynta Talamugaan oday u ahay Kismaayo iyo Soomaaliya dadkayga halkan uu joogaa xagga dadku waa iska farac annaga hadda aslan waa meesha hadda annaga saldhig noo ah waxaan leeyahay meeshana waa magaaladeennii waa magaaladan u soo qaxnay waa magaalada aan dan badan ku qabsanay maanta haddii aan tolkeen deganayna ma aan quruxda badan aan ku noolahay kumaana noolaan lahayn waxaan codsanayaa in amnigeeda iyo nabadgelyadeeda la xafido dadkana ay ka shaqeeyaan ehelnimada iyo walaalnimada dadka waxaa deeqi cadli iyo amni baa deeqi duqeydii maanta way joogaan dadaan wax u sheegi ma aha waa dad iga caqli badan iga odaysan soo taliyey laakiin waxaan leeyahay amnigeennana inaga halaabin dowladeenna iyo maxaan ku iraahdaa amnigeedana aan kala shaqeyno wanaagga aan kala shaqeyno haddii xumaan waad aragteen oo meesha hadda annaga aan degannahay wixii 35 sano xaaladda ay ku sugan tahay marka waxaa weeye waxaan codsanayaa mar kale in amniga magaalada Gaaris gacanta midig lagu qabto walaalnimada la xasiliyo deegaanka iyo dadka waxay Soomaalidu dhahaysaa ood ab ka dhow dadka magaaladan ku wada nool inay ehel isu noqdaan danahoodana gartaan siyaasaddu waa iska farac waxa loo noqon hayo oo marjaca ah waa maxaan ku iraahdaa deegaanka iyo dadka waad mahadsantihiin wixii aan bi'iyay naf iyo shaydaan bay ka ahaatay waxaan hagaajiyayna xagga rabbiga ka ahaatay waxaan leeyahay ugaas qalif soo dhawow waxa uu laga rabaa rasuulkeenni baa ilaahay wuxuu yiri fa bima rahmatin linta lahum walaw kunta fadlan qalida alqalbi lam fadlu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri
فإذا عزمت فتوكل على الله مركا حقا استاذ أدور كيسان مركا وحل حلين هيا ودتك وحل حمران هاللو حلي كتبك هاللو حلي يا اللو حلين هبل غير هبل حير بالهين حير وحبئنا التري مهيا وإلى بيئي واحد درحمة نبضي وحير كتبك أنو نقولنا قفك بين آدم كأ وحجاران إسلامك حقوق دي كتبك هاللو حليه وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالح فليتفضل. صعب ما شاء الله. waxaan bes diyaar waxaan salaamayaa oon u mahadnaqayaa beesha cawda qorta waa idishahay way imaatay geedka iyaga waxaa weeyo geedka ugaas deeqow macallin sambul odayaashii waa joogaan waxaa jooga ugaaska reer muuse ugaaska reer adangeri ugaaska reer qaasin ugaaska reer haaruun dhibidkiisa waxaan soo ayiidnay walaalaha iyaga caleemasaarka ugaaska bartire ugaas soo dhawow aad baana ku soo dhawaynaynaa annagoo mar horeba ehel wada ahaynoo magaaladan ku wada noolayn sidaan ognahay ciddan waa cid geda weyn weeyo kolka meel dheer baad nooga taallaan kulley reerka taariikhdiisa hadda wax aan halkan ka sheegayna ma ah beesha halkan degto ee daarood iyo soomaali inta iskugu sii dhadhow kablalax waxaan arkaa hataa beesha harti halkan way fadhidaa hadday halkan muu sheegin ninkii hadlaayay ugaasyadoodaan arkaa reerka inuu yahay reer aada u qiimo badan oo bulshadan ay aada iyo aada ugu weyn tahay intaas ugaas ay iskugu imaatay maba jirtaba intaasoo qabiil xaflado badan baa magaaladan laga dhigay ugaasyo badan baa lagu caleema saaray ugaaskan waxaad moodaa mudnaan gooni ah inuu leeyahay ugaaska halkan waad maqlayseen beesha dagoodi baa joogtaa caadi ma aha beelo kale oon magacooda la sheeginna way iska jiraan annaga aad baan ugaas ku soo dhawaynaynaa weliba ugaaska caleemasaarka waxaan ka codsan lahayn beesha bartire cimaamadii iyo wixii aan ku caleema saari lahayn baan wadnaa beesha cawda qadaanahay kolka hadal keliya ma ahee caleemasaarka midib baa loo dhigayaa mise haddaan ka dhigaynaa salaadina wayna haysaa haddaan ka dhigaynaa ugaaska waxaan usoo yeerayaa ugaaska ugaas cabdiweli beesha cawdaaq ugaasyadeeda dhammaan soo kaca ushaa iyo cimaamaddaa keena cimaamadda fur ushaa u dhiib beesha cawdaaq bay ka socotaa cimaamadda u saar baneeya waxyar meeshan baneeya dhexda baneeya cimaamadda si fiican oogu saar waxaan saarnay beesha cawdaaq cimaamadeedii baan saarnay beesha cawdaaq cimaamadeedii baan saarnay maasha allah taasna waa ugaaska macaawistiisii maasha allah maasha allah ugaas inoo soo dhawow kaljecele iyo walaalnimo gacmo furan wadajir iyo wada shaqayn ku soo dhawow beesha cawdaaq ilaahayna waxaan kaaga rajaynayaa baraare iyo barwaaqo inuu boqortooyadaada ka dhigo ummaddana inaad sinta ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu xilka kuu sahlo dadka waxaad u malaysaa markii ugaas ruux laga dhigo in loo malaynaya dheef gooni inuu qaatay war ugaas dhib ma ugaas looga dhigaa adoo habeenkii 9 saac jiiftaa lagu soo wacayaa lagu leeyahay ugaas soo dhaqaaq meeshaasaa dhib ka dhacay ugaaska xilkaa in lagu garab istaagaa la doonayaa annagana haddii aan nahay beesha halkan ku nool garabkiinaan nahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu beesha cawdaaq
waxaan leenahay waa intaad naga reeb magaalsan tihiin haddaan soomaalida kala nahay inaad mataqaanaa soo dhaweynta iyo macal caleemasaarka isku soo wada dartaan waxaa maxaa la yidhaahdaa waa in aadna dheertiin aad baad u mahadsantihiin oo salaam insha allahu tacaala waxaan u yeerayaa dhaqanka beesha cawlyahaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ugu horeyn dhammaantiin waa idin salaamaya nin walba masabkii magacuu meesha ku joogo ayaan ku salaamaya waxaan ugu horeyn u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala oo maanta meeshan isku keenay anagoo caafimaad qabno ugu horeyn dhammaantiin waa mahadsantiin beesha bartire maxaa maanta meeshan u imaanay anagoo matalayna geedka cawliyaan anagoo matalayna ogaaska cawliyaan beesha bartire maanta meeshan waxaan u imaanay inaa xafladda aan iga qalab qaadan xaflad aad iyo aad u ballaaran baa meesha ku qooteen waan ku faraxsannahay waana soo dhaweynaynaa haddaan nahay duqiyada ka socoto geedka cawliyahaan ee magaalada Gaaris ugaas khaliif xilka ilaahay ha ku fududeeyo xilka aad qaaday maanta waa xil aad iyo aad culus xil oo mushaar iyo wax lagu siinay ma laho dhibaato unba maanta lagu dhiibay beesha reer bartire horta qiimo ahaan dad ahaan waa dad aad iyo aad u wanaagsan waxaan malayaa siduu ninka hortii sheegay waa xafladdii ugu horreysay oo geedaha ka kooban Gaaris guddi ay wada imaadaan maanta waxaan malayaa geed oo reer Gaaris degan oo Soomaalida Gaaris degan oo meeshan ka maqan ma jiro taasi waxay tusinaysaa kalsoonida lagu qabo marka waa mahadsantiin waxaan kaloo rabaa inaan inta ka sheego geedka cawliyaan duqii kale igala socotaa maadaama ku diin aan wada hadli karin nafaaska waqtiga uu iska yahay waxaan rabaa inaan magacaashooda aan sheego oo aan inta soo istaajiyo waxay la socdaa Sheekh Cabdinaasir sheekhan wuxuu ka socdaa beesha reer cali ayuu matalayaa waxaa kaloo ila socdaa muse axmed baa ila socdaa axmed isagana wuxuu matalayaa beesha cawliyaan ee loo yaqaano xaawis waxaa kaloo ila socdaa cumar khaliif aabbihii cumar khaliif waxaa kaloo ila socdaa muse cumar khaliif asagana wuxuu matalayaa geedka cawliyaan soonqaad marka dhammaanteen meeshan waxaan u joognaa inaan noo muujino taageera inaan noo muujino inaan arrintiina aan raalli ka nahay ogaaskana waan soo dhaweynaa cid kastana way fiican tahay inay astaan lahaato inay ilin lahaato maanta beesha bartire waxaad ku mahadsantihiin ilinka ay idinka soo geli lehen baa idoo hayseen ilinka ilaahay idiin barakeeyo ilin wanaagsan ilaahay ha ka dhigo waxaan niga codsanayaa hal wax oo codsiyaan wataa ogaaska waxaan rabaa inaad garab istaagtaan soomaalida waxay dhahday hal far fool ma dhaqdo intaa ogaas dhaadiin ha iskaga tegina ogaaska garab buu u baahan yahay taageero u baahan yahay in la adeeco u baahan yahay oo la xushmadeeyo soo saa maaha haddii xushmad u haysanin adeec u haysanin muxuu ogaaska noqonaya wuxuu ogaaska noqonaya malaha soo maaha marka ninkaas waa in la xushmadeeyo in la garab istaago inay heli howal la garab istaago ilaah yiraahdo saan buu nigu shaqayn karaa go'aanadiisana in la xushmadeeyo ayaa aad iyo aad u wanaagsan marka wuxuu dhaawo hadduu wax sheego oo dhawo waxaan asaane haddaa dhahdeen waxba ma sheegaysid ogaas munisiaan markii hore ogaaslaan baa iskeen in ogaaslaan iska joogtiin baa yaa dhaantay marka maadaama hadda ogaas ay yeelataan wax walba go'aan uu gaaro inaad talaad ku leedihiin inaad garab siisaan inaad maxaa la dhihi jiray aad taageertaan ayaa aad iyo aad u wanaagsan marka mama waxaa jirtay inay ahayd ma garanayay waxaa la dhahay degiiran iyo waxaa la dhahay baalka xiid qubay tiifin yaa fiin waxaa la weydiiyey maxaa la ogaaskan kaa dilnaa mase 100 ruux aan kaa dilnaa fiin wuxuu dhaha leh 100 ruux iga dil degiiran wuxuu dhahay ogaaska ida ani 100 ruux iga dil soo haddaa rabtaan inaad badataan oo horumar gaartaan ogaaskiina adeeca ogaaskiina xushmaday hadduu ilaah yiraahdo marka intaasaan uga baxay waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu weli waxaan ku jirnaa xusitaankii dhaqanka beelaha ka soo qayb galay xafladda halkeed ay nooga sii socon doontaa insha allahu tacaala mudanayaal iyo marwooyin waqtigiina sharafta leh aad hurteen aad baan idinkaga mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan u yeero dhaqanka beesha maxamed subeer
محمد إيمان حاجي magacayga ansaxo waa iimaan xaaji shafad magacayga waa iimaan xaaji shafad waxaan u malayn haddii oo dib loo raaco ugaasku inuu aad u yaqaano arrintaas waan idin salaamayaa dhammaan inta xafladdan qiimaha badan ka soo qayb gashay waxaanan ku faraxsanahay maanta in aan taagnaado farxadda ugaas khaliif shiilow oo bartira ah oo taagnaado aadan ugu faraxsanahay arrinkaa asaga ah waxaan ku faraxsanahay in aan muxuu ahaay taagnaado maanta aadan ugu faraxsanahay waxaa kaloon ku faraxsanahay sida ay uga soo qayb galeen mas-uuliyiinta madaxda dhaqanka gaarisa dhammaantood sa ay uga soo qayb galeen dadkaa asaga ah meelaheen ugula caleema saaray annaga intan maba ayan fadhinba marka waxaad moodaa intii muxuu ahaa jilibnimada bartira aan leenahay bartira ilaa waa ina absamee waxaan o dhan markaan dabad laga kaxayaan u tegaynaa asage intaa inuu na hordheer yahay oo muxuu ahaa uu naga sitaad moodaa waana ku soo dhawaynaynaa laga bilaabo maantana sharaf iyo karaam u agtayna ka leeyahay waxaan rabaa inaan laba dardaaran yar dhiibo mid waxaan leeyahay ugaaska ugaas welcome ku soo dhawaaw dhaqankii gaarisa kenya ku soo dhawow oon manfac lahayn oon wax lahayn laakiin dhibka maanta suu kuugu bilowday aada la aakhiran doontaa insha allah dulqaad iyo waxaa laga rabaa cadaalad iyo in aad muxuu ahaa wixii khaldan annaga haddaan kaa yar horreyna waxaad moodaa inaan iska sii yar orodne inaad na soo reebtaan kaa codsanaynaa adigu intaasaan ku marinaya waxaan leeyahay beesha bartira ugaaska waad soo qaadeen waad soo diyaariseen xafladaad u qabateen wax dhaqaalo ood ku soo daba qaadeen oo aada leedihiin meeshii kugu soo oodanto iskaga bixi ma jirtaa arrintaa jawaabteeda waxaan qiyaasaya inay tahay maya hadda ugaas aanan jeebkiisa iyo gacantiisa qoyneyn soomaali waxay dhihi jirta gacantii dufan lahaa wax diliigta hadda gacantaa wax ma dilayaysa ku talagala oo idinkana gacan wax diliigta inaad ka dhigtaana laydinka rabaa wax idinkaga horre ama idinkaga dambeeya ma lehe intaas inaad qaadataan waan rabnaa qodobka iyo labaad wuxuu u baahan yahay ugaaska garab istaag sida ay sheegeen muxuu ahaa odayaasha dhaqankii hore annaga hadda telefoonadiisaan qaadanaynaa maantaba wicitaanaan ku bilaabaynaa ugaas meeshaasaa lagaa rabaa gaarigu wuxuu kusoo raaci lahaa isaga u taallaa wuxuu kusoo ku imaan lahaa isaga u taallaa nairobia lagaa rabaa wajeeraa lagaa rabaa waxaa lagaa rabaa masielo waa lagaa rabaa marsabedaa lagaa rabaa waa bilaabaynaa annaga maantaba laakiin hadduusan garab istaag haysanin ma shaqaynayso arrintaas dadkaydii ka horreeyey waxoogaa jug baan qabnaaye jug hala siiyo sheekh waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkan waxaa fadhiya madaxdii maxamed subeer first germankii gaarisa wuu fadhiyaa imbigii soomaaliya ee maxamed subeer xirow iidlaa fadhiya xirow iidla soo istaag meeshan waxaa fadhiya duqi maxamed halkan waxaa fadhiya curadkii maxamed subeer haddaad maxamed subeer arki jirteen curadkiisina xataa waan wadnaa maanta gadaal ma jiro soo istaag faasjama soo istaag waad mahadsantihiin gabdhaha iyaga
وما سنتين لليرضيضة وما سنتين أضياشنا إن شاء الله تعالى كلمتين وعن ربائن وإنبيقا دردار نسير لافو إن شاء الله تعالى بنا خشمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد لما ذكر مش اسكوي يونين كستامس فوق فديو عن السلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وكفر حسنا إنه السياسة إن نقصوا قيب قالوا حفلة دقنك قريف شيلو عثمان عن ملايين يعني محبطا بان كوذا قيب قال لي شرر نيروبي كدعي وكمدها جودي كومده مجال نيروبي مقاصد درتد waxaan malaynayaa inay beeshan bartire gebi dhacin waxaa kale lagu yaqaanaa beeshan muwaafaqa saad muwaafaqa hore u ahaan jirtiin inaad ugaaska muwaafaqa u ahaataan ugaaska sidii odayaasha hore ay sheegeen laga garab istaago haddaan wax yar ku sii daro soomaalida waxaan u malaynayaa ani intaan indheeyey waxaa u dhaqan adag laba qoys waxa weeyaan ciise ugaaska hadda joogo 25 sano la raadinayay 25 sano sanadku asaga dhashay yaa waxaa la qabtay guddiga soo xuli doono 25 jirkiisii bay soo xuleen taa waxay keentay saddex dal inay ka soo qayb galaan cala masaarkiisii Ethiopia, Djibouti iyo Soomaaliya waxaa intaasi dheer beesha dugoodiya وابرك الدقودية وحوي ماذا نيروبي سوق الدوم بعدعي لقى صوب بالله وجبكات إيربوت يا مجال ده يا محل كل كسواي بابورتي بني آدم كي سوق دوت لوسمية تاس وحي تصالح التهاي بيركستا ما كاين كذا قيمة سو أيو قيمة لنا يا إذا درت باش برتنا وعنك عصرية سيد بناس وكذا واسكو قيميان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي السلام عليكم ان سودوينتا دقنكا beelaha dega Garis waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno beesha Mariixaan dhaqankeeda ka soo qayb galay halkan ugaas Cusmaan bismillah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامك وأمدا ماشي اسكو تميد سوماليات وحنكو السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام بعد جد وحن مثلا يا أم أفكر أنكو الله يا وحنكو الله يا أفكر بيشا مريحان أنيقو عثمان الشيخ عبد السلام deegaanka Garisana degan waxaan soo dhaweynayaa ugaas Khaliif oo matalahayo beesha igu dar beesha bartire waxab xilma wax wala iska imaam karaa bini aadam baan nahay yaan soo dhawaanay ugaas soo dhawow salaam soo dhaweyn bacdigeed culays baa lagu dhiibay calaf laguma dhiibin nin la yiri beel baa dhaqan u tahay culays un weeyo waxa loo dhiibaa calaf looma dhiibo ilaahay culayska loo dhiibay ha kugu asturo hala kula garab galo waxaan kugu kaalmaynaynaa waa ducada wax kale oo annagan kugu kordhinayna male aniga hadda idin la hadlayo afka beeshaan ku hadlay laakiin beesha ugaas bay leedahay ugaas asal oo magacaaban bay leedahay laakiin goobta muu fadhiyo ana magaciisa hadda ku hadlayo ugaaskaas waxaa la yiraahdaa ugaas Sharmaarke waa nin ugaas Sharmaarka asalkiisana ugaas asaguna Sharmaarka ugaas Sharmaarka la yiraahdaa magaci awowgiiba wataa intaasaan idiin sheegaya waana soo dhaweynayaa ugaaska beesha bartire. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rabnaa inaan u yeerno hoggaanka dhaqanka beelaha harti
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخيارت هالكن السوتمي قف كست وحن كل سلام يا منصبك وكفر ديو رجع الضمر سود وهذا سيدا الأسرة الجيبتين حفلة قروح ضبضان لينو مرتقى ذي باش برتقى لينو مرتقى ذي فليتفضل كسود وهذا انت كبعدي وحيلتها هذا البدن ماشي ومصيب باهنا. أولاً وحن سود وين أنا وكوهد لي مجا باش شهرتي مجا واحد لي محمود يوسف وضيبا لنا هي أنك عاقل بالليل هذا وضيق نوم مثل غارسا كاونتي وإلى السعودية مركا أدو مناكو يربحي لكن ده شبكة أنا سوق علي isagaan matalayaa codkiisaan ku hadlayaa magaca harti. waxaan soo dhaweynaynaa ugaaska cusub ee beesha Bartire ay soo xusheen oo waxgaradkoodii rag iyo dumar ay isku afgarteen, annaguna waanu la qaadnay, waan soo dhaweynaynaa. in badan baa waxaan maqli jirnay Bartire buugga kuma jiro, laakiin maanta waa ku jiraa, si toos ugu jiraa, maanta waa qoraya. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala isagana waxaan leenahay xilka loo dhiibay zamankan maanta la joogo ninkii xil loo dhiibo culays baa la saaray. marka ilaahay ha ku asturo. ilaahay waxaan isagana u dardaarmaynaa cadaaladda inuu ka shaqeeyo intii tamartiisa, wixii uu ku khaldamana laga toosiyo, wixii uu ku saxayana lagu taageero. walaalka waxaa la yidhi hadduu gardaran yahay hadduu laga gardaran yahayba u hiili. marka in loo hiiliyaan u baahannahay, ugaas Soomaaliyeedna uu noqdo oo uusan reerka kaliya ku koobnaan. intaasaan anigu hadalka kusoo gabagabeynayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. وعندكم سلام يا سلام محمد ديا. السلام عليكم. سلام بعدي. سامع. سلام بعدي. بان ugu faraxsanay maanta xafladda meesha ka dhacday ciidan ugu soo yeertay Bartire aan ka soo qayb galnay ugaaska cali masaarka. baan ugu faraxsanahay ciidii soo abaabushay. inta ka bacdi anigu waxaan la dhahaa Cabdixakiin waxaan matalaa beesha Rays Ibn Abdullah Xasan Sayyid Maxamed Abdullah Xasan ciidiisa matalaa waa beesha Baagiri countiga Gaarisa matalaa. markaas sidaas aad u ogaanaysaan. midda kale waa idinka aqbalay, waan idinka ajiibnay ugaaskii aad keenteen reer Bartire. kulley magaalada Gaaris qabiilo fara badan baa degan oo Soomaali ah oo cid walba ku jirto, dhaqamay leedahay. dhaqamadii aad ku soo biiriseen hadda waxaan ogaanay maanta laga bilaabo waxaan ogaanay in laga gelaa muxuu ahaay to beesha Bartire. soo dhaw ugaas, aad baan kugu soo dhaweynayaa. ku soo dhaw dhaqanka. kulley annaga wax nagu siiya dhaqanka ma jirto, lacag bishaar kuma qaadano. haddana intaa wax badan baa noo dheer oo waxbuu cunaa iyo waxbuu kan yeelaa waxbuu kan yeelaa. marka waxaad leelisaan duqaha laga daayo xagashada haddaad keentaan waa inaad raacdaan. horta midaas waa iyada waa ku taageerinayaa Bartire. maanta laga bilaabana dee in aan ugu soo haagnaan helay oo ugaaskii Bartire ah. marka sidaa darteed waxaan rabnaa inaad macnaha sidaad ugaas uga dhigteen inaad meel cidla uga tegin oo garab istaagtaan. ugaas qalliya annaga dadka inta la soo qaado madax laga dhigaa meel cidla looga tagaa. marka sidaa hayeelina waxaad yihiin curadkii absame meel kale aad joogtaan meeshii laga galaa tihiin
haddii ugaaska waxaan rabaa sidaa usoo qaataan inaad waddo fiicanna marisaan oo meel cidlaan nooga tegin taas waa mid ah aniga waxaa ila jooga hadda odayaasha maanta marka la yeerahay waxaan maaragtay ku jirnay xaaja odayaasha xaajay ku jireen aniga laba oday oo kala soo baxnay labadii oday way joogaan mid waxaa la dhahaa waa saraakiishii hore muxuu ahayd embiyadii hore Soomaaliya hadda embiyaa ka hadlaysa meeshan Kenya kaliya ma embiyadii Soomaaliya xataa way joogaan nin la yiraahdo waxaa jooga aadan Cabdullaahi Sooisaak aadan Cabdullaahi Sooisaak Cabdullaahi ninka waa embiyadii hore Soomaaliya kuwii hore ka soo qayb galay xafladan welcome dhoobo ma jooga dhoobo Sooisaak dadka xaaji ku maqnaayeen intii markaan isaliili karnaba ku meesha marka waxaan rabnaa soo dhaweynaa aad baa idin soo dhaweynaa shaqo badan baa u taala ugaaska magaalada muxuu ahayd shaqadeedii dhibkeedu uu badan yahay marka inuu nagala qayb qaatana waan ku faraxsanahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan rabaa marka inaan u dhiibo galmada uu yiraahdo muxuu ahayd MPgii Soomaaliya Aadan Cabdullaahi la dhahaa marka asagana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo meeshan uu ka hadlo galmada بسم الله الرحمن الرحيم لما هو سلام يا دتك إهلك يا حفلة كسر قيب قلي سلام كبعدي وحان لا هي ماشي خير بالي سقوي يبيد يمد نما يو ضد لما ذي هذا من نما أنا وفي عنته ودكتين وحول معها هذه برتله من نما أي أنت يذكرها عن شيرمان سمايستين أما وجاس وحاول كومض ودم بيا شيرمان ma garanaysaa ayay arrintaas u fiicantahay niyada u dhisaysaa maxaa yeelay haddii hal qoys midooba dadkoo dhan baa midoobahaya midnima macno leh waxaa weeye dadku wuu soo qaxay dalku daadsan yahay hadda Soomaaliya iyo Kenya waa calooshanadii baa meel walba taalla waxaa weeye ninkii ururin lahaa haddii la magacawday waxaa weeye waa tilaabo horey loo qaaday oo muhiim ah weeye cid walbana sidaasaa laga rabaa asay aniga ila tahay maxaa yeelay Soomaaliya halkay tuuran tahay waa la soo qaxay waa wadankanagii labaad weeye meeshan dadku waa ehel waxaa la rabaa marka dadkii in ma garanaysaa uu isqaato waxaan doonaynaa ugaaska in la soo dhaweeyo oo ay bartida soo dhaweeyaan oo midoobaan waxaa weeye arrintaas sharaftoodii iyo karaamadoodii yaa ku jirta waa curadkanagii waxaa weeye midnimada inay noo bilaabaan baan rajaynaynaa marka hana la garab istaago asagana anigu waan aqaanaa ugaaska waa nin qiimo badan weeye oo aanu garanayno oo hogaamin leh marka wixii ka dhimanna haddii hogaamin loo dhiibo waa ku cusub tahay in lala kaalmeeyaan jecel la soo garab istaago asagana waxaan ka codsanaynaa sidii aan ku naqaanay inuu dadka cidii oo Soomaalida khilaaf lagama waaye isxumaynaysa oo madaxa gacanta ka saaro oo soo dhaweeyo oo reerka mideeyo anaguna waa ugu ducaynaynaa ogaaska beesha balcad الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله إله بمحله ماشي نسوق كاني أنا أضيال خيار waxaa ugu muhiimsan oo meeshan aan isku imaanana waxaa weeyaan ninkan odayga ah oo walaalkeen ah oo xilka loo idmay inaan bogaadina aan hadana insha Allah taala aan u duceyno Ilaahay inuu ku asturo weeyaan Soomaalidana waqtigan saad oo la socotiin xilliyo culculus oo khilaafaad aad u baabi'iyay ku dhex jiraan haddaan loo hagaajinin ummadda qof horseedo ama xaqa tuso ama qaladka ka qabsado ama qaladka ka reeba haddaan loo hagaajinin ummadda way sii baabi'i saa awgeed baa waxay noqotay ayadoo diinta laga ambaqaadayo in qoys walbaba nin oday ah oo akhyaar ah xilka intii lagu wareejiyo lagalana xisaabtamo marka saa awgeed annaga waa soo dhaweynaynaa wadaadkana waan ixtiraafsannahay mar horena waan isnaqaanay marka ilaahay waxaan uga baryaynaa xilkan culus oo maanta lagu wareejiyay ilaahay inuu ku asturo kii ummadda islaamkana ku anfaca Allah uga dhigo khaasatan ummadda islaamka iyo si gooni ahaaneed ummadda Soomaalida maxaa yeelay Soomaalida meel ma kala jirto oo hal qoys magacan bay la kala baxeen waa hal qoys oo hal magac leh oo hal diin ku wada jooga marka saa awgeed waxaan rajaynaynaa walaalkeen inuu xilkan
ummadda uu si fiican ugu hogaamin doono. Allah u barakeeyo, annagana Allah noo barakeeyo xilkan maanta loo dhiibay. hogaanka dhaqanka beesha Dagoodiye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان odayaasha sharafta leh beelaha kala duwan ee Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka beesha Cabudbaaq beesha Cawlahan beesha Samawadal beesha Maxamed Suweer beesha Bahgari beesha Muqaabul beesha Mariixaan beesha Harti beesha Ajuuraan beesha Garre iyo wixii magacayga iyo muuqayga yaqaanaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba aan mahad u celinayaa dadkii soo abaabulay xafladdan sharafta leh ee caleemasaarka caana shubka ugaaska Bartire ee Jidwaaq Absame Musey Khaliif Shiilow Cusmaan Musey Khaliif Shiilow Cusmaan soo dhawow anigoo ku hadlaya magaca beesha Dagoodiye waa Dagoodiye Saransoor waxaan si weyn u taageersanahay oo aan u ixtiraafsanahay ama aan u aqoonsanahay in uu yahay Musey Khaliif Shiilow Cusmaan hogaamiyaha beesha Bartire ee Garissa County. garabkiisa Allah galo waqtiga oo kulul darteed ammaan fara badan baan u jeedin lahaa. waxaan u yeeraynaa hogaanka dhaqanka beesha Ajuuraan Cabdirasaaq Mukhtaar ugaaska usacbiya soo dhaweeya ugaas soo dhawow ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan waxaan salaamayaa marta sharafta ka soo qayb gashay xafladan caleemasaarka ah ee cidda walaalaheena ah ay u soo xusheen ugaas Khaliif. dhammaan waxaan kaloo salaamayaa ugaasyada culimada bacda saxaafadda haweenka dhammaan nin kasta meeshan uu fadhiyo mansabka iyo jagadu ku fadhiyaan ku salaamayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اسكدب aad baan ugu mahad celinaynaa walaalaheena xafladan sharafta leh noogu yeereen oonan ajibno ka soo qayb galnay. aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaan inta ka soo qayb qaadatay. ugaas Khaliif waxaan leeyahay marka ugu horeyso anigoo ka hadlayo beesha boqortooyada Ajuuraan waxaan ku leeyahay waan ku soo dhaweynaynaa magaalada Garissa. niman fara badan oo akhyaar oo walaalaheen ah oo magaaladan degan baan la deganahay sida Samawadalka Cawdaaqa iyo Cawliyahanka. aad baan iskugu fiicannahay waa dad qiimo badan waa dad waxa waayay siyaasad hadday noqoto iyo hadday dhaqan noqoto iyo hadday jiiraannimo noqotoba aad iyo aad u wanaagsan. magaaladan waa magaalo Soomaaliyeed magaalo shakhsi lagu tilmaami kara ma aha. marka magaaladaas baad ka mid tihiin dadka degan sidii lagu soo dhaweeyay uqaashan aad arkaysaan iyo ugaasyadan si fiican iyo si degan iyo si walaaltinimo ah. annay haddaan ku hadlo beesha boqortooyo Ajuuraan sidaas baan ku aqaanay sidaasaanan hadda kula degannahay. idinkana waxaan leeyahay sidaas oo kale ku soo dhawaada maxaa yeelay beel kasta waxay u baahan tahay irid laga galo. maxaa yeelay magaalo markaad degan tahay xumaan iyo wanaag buu arki
dadka waxa maxaa la dhahay jiiraanka iskugu dhowe way isqoobsadaan ama way isku dhacaan marka dadka marka isku dhacaan meel laga galo ama laga raadiyo in la helo waay marka beesha Bartire maanta waxaan marqaati ka nahay annagoo reer Gaarisa ah oo dhammaan beelaha degan oo halka wada fadhiyo in irid laga galay ay haystaan oo maanta wixii ka soo galo beelaha kale ee degan magaalada Gaarisa wixii ka soo galo in cidda Bartire ay ugu soo toosi doonaan hadday noqoto in gabar laga doono hadday noqoto in dhiig loo raasado hadday noqoto in waxyaalo kale oo hoose ay iska jiraan waxa laga soo geli iridda laga soo geli oo laga bixi waxa way waas khaliif marka waxaan leenahay ugaas soo dhawow ugaasnimada sida midda Soomaaliya oo kale maaha midda Soomaaliya waa mid oo dheef leh oo waxyaalo badan leh laakiin middan Gaaris waa mid iska dhib badan 24 hours 24 saac geed baa hoos fadhida mushaar kuma qaadato marka beesha Bartire waxaan kula dardaarmi inaad ugaaska ka war haysaan caruur buu leeyahay sida adiga danahaada aad u gudanaysid ayaa la rabaa inaad adigana aad dantiisa oo kale aad ka fikirtaan marka waxaan leenahay soo dhawaada ilaahay idin barakeeyo ما شاء الله boqortooyada beelaha Ajuuraan waa dhaweyd baa waxaan akhrinayay history oo Chinese ka ay qoreen Chinese ku in la socotaan in kala ma aqaan waagi hore waxay ahaayeen boqortooyo waqtiga dambana waxay noqdeen dawlad oo shuuci ah 5,000 oo sano waxay leeyihiin file maamul bay lahaayeen ilaa 5,000 oo sano wixii ay qoreen oo dhan way u keedsan tahay marka recordka waxa ugu jira Soomaaliya inay xiriir kala leeyihiin nin la yiraahdo ugaas maxaa la yiraahdaa Ismaaciil oo ahaa boqortooyadii Ajuuraan inuu u diray gari hadiyad ah uu doon u saaray 800 oo sano ka hor marka beelaha Ajuuraan sidaas ay history u leeyihiin Soomaalida Chinese ku way nagu tixgeliyaan inaan xiriir waqtiga lahayn 800 oo sano ka hor marka aad baa u mahadsan yahay ugaaska iyo dhammaan insha Allah taala halkaas aan ugu gudbaynaa waxa jira waxaan invite garaynay beesha walaalaheen muqaabul ku soo dhawaada ugaas Ahmed Gabo welcome soo ugaas بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله waxaan yar fiiriyay dadka meesha fadhiya xogaa waa arki waayay gaabow ii soo dhawow eemow waa maasantahay meesha ma iska fadhiya waxaan isla qoyska meesha yaa lagaga guurin nin waxaan maqlay suldaan ahaan jiray yaa gaadiid waayo meel baa laga guuray baa layidhi markii reerihii ay ka tageen oo meel ay degeen wuxuu yidhi baa layidhi qurbac yar oo geela ku jiray yuu iska soo qabsaday qurbacii markuu soo qabsaday wuu ka camaamjijiyo oo laba haamood yaxuu saarto reerihii buu ka daba tegey markaa qurbici waa cabaadaa leey wuxuu yidhi baa leeyahay qurbici cadaawow nin danlow oo dayrtii naqdambeed iyo dalsankii ka fogaaday ayaa dacaydaa kugu jiiday ee dulqaadkeeda lahaw buu ku yidhi horta dee meeshaas anagu booskaygii halkan ma ahayn booskanayga wuxuu ahaa meel yar sare buu ahaa laakiin waan soo kacday waxaan sayntii laydinka yar guuri lahaa timaadid marka Axmed Gaawo waa maqan oo marka la sugaayay ma imaanin waan soo dhaweynaynaa ugaaska waan soo dhaweynaynaa jamanka waan soo dhaweynaynaa khayr Allah siiyo anigu ummad badan oo dadkii hore dadka wax qoran ku jiray sayid wiilwaa waxaan ku xasuustaa 15 kilomitir meel u jirta jigjiga ayuu wuxuu ahaa gambarkiisu ahaa halkaasuu dadka xukumi jiray wuxuuna xukumi jiray ilaa saylac ilaa muxuu xukumi jiray maxaa ay sheegeen meesha la yiraahdo dirdhawa intaasuu joogay marka waxaan sugaynaa khaliif insha Allah inuu noqdo nin intaasoo dhan isu xukuma oo weliba fiican waxaan weliba dheelaa aada loo caawiyo oo dhinac walba laga caawiyo idinku sidaa doontaan u qaatay
marka odayaashii hore hadlayna aad baan ugu mahadcelinayaa tolka ahaa ee aad u hadleen qoys walba lahaa aad baan ugu mahadcelinayaa dadkan soo iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa hadal aan ku talagalay ma ahayn laakiin waxaan rabay inaan yara dadka inaan meesha imaado baska buuxiyaan rabay marka aad baad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah insha allahu tacaala xafladeenna waa inoo soo gabagabo wax yar baa inoo dhiman aad baan idinkugu mahadcelinaynaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha gabdhaha wiilasha odayaasha ogaasyada waxgaradka aqoon-yahanada dhammaan beesha halkan iskugu timid meelaha fogfog ka kala imaatay ee ay ugu badan tahay beesha kuumade horta dad badan waa laga yaabaa inayna kuumadaha aqoonin waxaan rabnaa inaan kuumadahu horta yaa la dhahaa yaa la isku dhahaa anigu haajir ahaan waxaan ahay nin abaskuul ah waxaan ka mid ahay kasoo qaybgalayaasha xafladan kasoo qaybgalay ee walaalaheen ee ay ku doorteen dhaqanka hoggaanka dhaqanka beelaha beesha Bartire ee Kenya horta waxaan leeyahay aniga iska bilaabaya annaga oo jidwaq isla ah ku hadlaya afka abaskuul waxaan idinla garab taaganahay heel iyo hoo sidaad ogsoon tihiin beeshan Bartire waxay ugu fara badan tahay waxay degan tahay labadan webi inta u dhaxayso webigan Tana River iyo webiga Juba inta u dhaxaysa ay degan tahay wali waxay ka mid tahay beelaha markii la qaybsanay agood qaybsigii carta ka dhacay beelihii sida siman ula qaybsaday Cawliyahan iyo Maxamed Sweer iyo Bartire absamaha oo dhan waa wada degan yahay tira lagu wada degan yahay nin hoostaga ma laha nin walba gaarkiisa uu leeyahay laakiinse waa beeshaas balaaran oo halkan degan aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhawaynaynaa inay ku yeeshaan hoggaan dhaqan oo aan dugsano oo walaalaheenna ah ayagoo weli inoo soo xulay nin hufan oo aan saaxiib nahay Khaliif Shiilow Cusmaan waxaan rajaynayaa inuu ka bilaabo Bartire jidwaq gaarsiyo absamo ku xijiyo kuumada ku xijiyo halkaas uu ka sii wada Soomaali weyn uu u noqdo xarigii isku xiri lahaa insha Allah taala Khaliif xilka lagu egmaday Allah kuugu garab galo insha Allah taala inta kadib waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo rag erga ah oo waxa jiray ka yimid ilaa iyo dhadhaab ilaa Soomaaliya Maxamed Aadan Makiina waa nin Bartire ah oqaashi halkaas ka soo hijrooday oo xafladan u yimid kamid ah waxaan leenahay inuu kalmateen noo dhaho waa waxgaradka odayaasha beesha Bartire soo dhawow Maxamed Makiina shawaga hayste okeedan fiicanba ugaas qariifiro anta loo calma qoraadi Bartire markayga agata السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أنا مقعي وحالي هذا محمد آذن عبدي وبرتراء أنا محمد آذن عبدي برتراء محمود أحمد أنا كو أفر يا وحن كنمد ماشي اللي يرى هذا الداب إلا نيروبي وان أقدمني هدنا وحان متغانا وجونا على مساركا وغاسكا Bartire Khaliif Shiilow oo Gaarisa marka dhammaan waxaan soo dhaweynayaa martay sharafta soo ajiibtay maqaam kastaba ha lahaadaan rag iyo haween oo ka soo qayb galay xafladan walaalkood inay mataqaanaa ay ajiibaan sidaas oo kale annagana saasaan mataqaanaa u nimid inaan ajiibno على مسارك والالكاين خليف شيلو عثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سقالها غارسا باشا برتري محمد عبد الله عثمان عبد الرحمن
عسولو محا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طشا ديارو وين مهسند thank you السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين ضمان وادين سلام يا سلام تقالي اسلام قاعدين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سقالها عدة قوسك الحمد لله رب العالمين. قوليد وادين سلام يا ضمان عس والبقى مشان سومالي وكل وقاشة ضمان تود وادين ولا السلام يا سومالي وين أيان مقع سومالي وان ودين كلا بحنين إن شاء الله يادين كل سلام هيا. سيدنا نوسو أجيبتين قاواس كان خليف جيرو معناها حلفدي سأوصو قبل قشين إذن كأو نسو ولا أجيبتين أنا أوصو تفحترني سوى ناكسرنا مع موسكا أسو هجاجيني سيدا أيضا ضمان هذا البدل المقبي واد مهاسنتهين waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo waxgaradka beesha abaskuul. بسم الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إخواني إلهي بما تسكر سبحانه وتعالى إلهي دمجينا هدافو دعوات كذا أنا أقبله وحاوي دمجان قال لي إلهي كجلينا الله نعفيه نكستنا مركو مشكك عيا إلهي أطوبت كانوا أنت وإن مشوا على سكوء ماضي xalfad aad u ballaaran oo lagu maamuusahayo ugaas khaliif shiilow. waad aragtaan waa ninkaas aqoon-yahanka ah odayga ah waxaa weeyo walaalaha hadda la sheegahayo ee la xusahayo ee bartiray iyo abaskuul walaalo waay laba cidoo walaalo waay muslimiinta oo dhan baa walaalo oo la yidhi almuslimu akhulmuslim. haddana waxaa weeyaan annaga haddii walaalaan sii nahayba oo abtir baan isku sixgnaa. marka waan soo dhawaynayaa waanan ugu mahad celinayaa bishaaradaas iyo boqortooyadaas loo ilaahay u idmay subxaana wa tacaala. ilaahay ninkuu ilaahay u idmo unbaa la siiyaa oo boqortooyada loo dhiibaa. dadka ka soo qayb galay ee magaca guuda islaamka ah ee cid kasta ka mid ah absami iyo nawaaxigiisi iyo dadka kale islaamka ee magaalada Gaaris degan kulligiin waa idin mahad celinayaa idinkoo yacni maaragtay nala soo dhaweyseen ugaas khaliif shiilow. marka waa hadalku looma hadlo yacni maaragtay iska hadal ma qalla wadalla waay yacni wixii ku tusiyo waxaa weeye hadal khayr badan oo faa'iidan unbaa hadal ah. waxa kale malaa'igtaa ka shaqaynaysa nin kastana iska ilaaliyo. marka 100% waan taageersanahay aniga oo odaygii ama jeemankii abaskuul ah. cumaamadaha ay keeneen iyo macawista iyo waxaan maaragtay ilbaxnimadka cawdaaqana waa igu jirtay. waxaa weeyaan maaragtay waa iga hoostay inaan makoorooyin soo qaado cumaamado soo qaado waa qalbigayga waa ku taagnayd. marka waa la iga badiyey. haddee cidaha kale ee walaalaheena reer cabdillah reer abtegey iyo maaragtay samawado wadal iyo dagoodiga iyo maqaabulka iyo baalcadka iyo weyteenka soomaaliya o dhan waxa kama maqna meesha. kulligiin waa idiin mahad celinaynaa annagoo aad nala dooranaysaan
ugaasyaha ka mid ah oo jid waaq ah oo haddana bartiro ah waa mahad baan idin celinaynaa wabilaahi towfiiq wasala allahu calaa nabiyina maxamed ahaa garwadeen soo dhawow ciise maxamuud faradheer waan dhawahay ugaaska iyo dhaqanka meesha kasoo qayb galeen waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan samayn rabaa aniga waxaan wareejin rabaa certificate-kii ugaaska uu ku maamuli lahaa geedka bartire certificate-ki lagu maamuli lahaa yaan rabaa inaan wareejiyo anigoo mathalayo aqoon-yahanada